xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood laga soo doortay ayaa maanta kalfadhigoodii 16aad uu ku qabsoomay xarunta degmada Laascaanood ee dawladda hoose hoolka dawladda hoose degmada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascaanood iyo 17 xildhibaan oo kamid ah 22 xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada Laascaanood uu ka kooban yahay waxaana kalfadhigaasi uu yahay kalfadhigii 16aad uu gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale waxaana ku ansixiyeen miisaaniyadda qorshaha 2019 ee miisaaniyadda ay ku shaqeyn doonto golaha deegaanka degmada Laascaanood oo ah 6 bilyan iyo 500 milyan oo Soomaaliland shilina codkii golaha deegaanka degmada Laascaanood oo ku ansixiyay 16 xildhibaan ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Laascaanood ahna maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale 2019 waxa golaha fadhiya 17 xildhibaan 16 xildhibaan way ogolaadeen xildhibaanna uu ka aamusay saas wax diidana ma yahay halka xildhibaan ba ka aamusay saasay miisaaniyadii 2019 ku ansaxday xildhibaanadu aad iyo aad u maadsan yihiin qodobkii labaad ee xawaalaha magaalada in la sameeyo oo loo sameeyo hay'adaha u gaara aan cid u soo dhaafi karin ku ansixiyay xawaaluhuna muhiimadda ay noolin waa garanaysan nin walba maalin baa la geyn doonaa maalin walba way kordhisaa dilahaydmo marka insha Allah dadka xawaalaha ku dhaweey ma gumari doonaan nin intii nin nool nin inta muhiimsan marka hawsha xawaalahan aad iyo aad u wanaagsantiin wayna astaynaa laba cisho kadib dilahaydmo shirkuna saas uu nagu xidhan yahay aad iyo aad baan wanaagsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ayaa markii kalfadhigu dhamaaday iyaguna halkaas soo dhaweeyay anagoo ah golihii deegaanka oo gudoomiyihii uu noo gudoominayay xogayo waxaan u fadhiisanay miisaaniyad sanadeedkii 2019 waan ansixinay waxaan kala ansixinay xabaalaha oo ay tahay degmada oo fidayso oo dadkii xabaalay dhulkii yaraaday baan iyadana waxaan ansixinay cid kastaba halahaatee inaanu u fidino labada xabaalood ee degmadu leedahay inaanu fidino oo aanu cagafta gelin hadii alla ka dhigo wiigan gudihiisa oo aanu ballaarino oo wax rasmi ah oo loo baahan yahay taa oo xisaarantahay dawladda hoose baanu xasaamaantana go'aanka labaad baanu fulinay insha Allah bismillaah shacabka degmada Laascaanood waxaan sheegay maanta waxaanu ansixinay miisaaniyaddii 2019 oo ku salaysnayd goluhu dhammaantii uu wada joogay soo xaadiray waxaanu kala ansixinay qodobkii xabaalaha magaalada fidaysa waxaan bulshada reer Laascaanood ku wargelinayaa inay ka digtoonaadaan inay xabaalaha ku dhawaadaan xabaaluhu waa barta kaliya ee muhiimadda qof walba uu dhimanaya maanta halkan ku ansixinay miisaaniyaddii 2019 iyo fidinta xabaalaha 20 sano ee soo socda dadka reer Laascaanood lagu aasi lahaa cid waxaanu marin doonaa xayndaab u gaar ah xabaalaha 20 sano ee soo socda si looga faa'iideysto bulshada aaga u dhow waxaanu ogeysiinaynaa inay si degdeg ah uga guuraan waxaan halkan ka soo qayb galay 18 xildhibaan dhammaantood waanu wada ansixinay waxa mustaqbalka iyo danta bulshada ay ku jirto waa Barkad Cumar Axmed warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.